السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الصدوة هذا مركلة ما أنت واحد يبدأ برنامج كصومالي كديس أو لما أنفعتونا كصوماليات كارهان واردين تا أي عروضو ku adag tahay in ay bartaan af Soomaaliga amaba hadalka oo dhan sida waalidiinta caruurta qurbaha ku haysta oo aanan helin caruur ay la ciyaaraan oo inta badan isaga xiran guryaha oo aanan helin fursad ay kula sheekaystaan iyagana ay u dagaalamayaan sidii ay u soo dhicin lahaayeen nolol maalmeedkoodii sidaa daraaddeed maanta barnaamijkan aad iyo aad ayuu idin anfacayaa haddii aad Soomaali joogto ee ay caruurtaadu hadalka ku yar yahay barnaamijkan wuxuu kuu suurtagelinayaa ama caruurta u suurtagelinayaa in ay hadalkii xiiseeyaan maadaama uu barnaamijkani la samayn doono falcelin oo ah inuu barnaamijkii tusayo waxyaabo sawirro kadibna isla markaa sawirkii markuu ilmihii taabto u dhawaaqi doono isla markaana adiga aad u saacidi doonto tusaalahaan hadda qaybtan ayaan galayaa intaanan gelin ka hor intaan dhowr qaybood ayuu ka koobayaa barnaamijkan intiisa badan aad baan ugu xumahay waa lacag laakiin waxaan is leeyahay haddii aad ka hesho waad iibsan kartaa bishii waa adiga waxaan sidaa u badnayn waxaan qiyaasayaa $5 meelaha ama ka yar inay tahay bishii marka caruurtaada oo hadalkuu barato waad bishii $5 dhibto wax weyn maahan laakiin barnaamijkan aad iyo aad buu u saacidaya caruurta aanan hadalka garayn laga yaabo inay 5 sano iyo 6 sano jiraan weli aanay hadalkii awoodin sidaa daraaddeed xitaa kuwa sanadka jira waad ku ciyaarsiin kartaa waqtiyada adiga oo aanan ku daynayn oo waqti kooban taleefanka u dhiibaya ama iPad barnaamijkan ugu soo dejinaya saacado kooban si uu ugu ciyaaro waxyaabahan sawiradan wada muuqda ayaa waxaa loogu sheegi doonaa af Soomaali adigana waad ka saacidi doontaa oo waad u sii sheegi doontaa tusaale ahaan hadda qaybtan oo saaran yahay sawirka daayarka waa qaybtan kale maqasta iyo waxaan ku yidhahdaa halka afka lagu cadaysanayo iyo saacadda ay ka muuqan yihiin waa iyadana qayb kale waa qaybaha uu farida ayuu ku jiraa qayb kaloo iyadana waxaan malaynayaa 3daas qayb baa fariga hadda qaybtan ayaan gudaha u kale maqasta ku jirto markaa gudaha u kale kadib waxaan taabanaya qaybtan ay ku qoran tahay baro qaybahan kale wuxuu ku geedi doonaa qayb lacag ah tusaale ahaan hadda waxaan taabanaya qalinka sadarkiisanba sidaas ayuu mar waliba ugu dhawaaqayaa okay haddii aan qaybtaasi ka baxno ee aan galno qayb kale tusaalahaan qaybtaasi waa qayb si su'aalo oo kale ah waxaa lagu soo saari doonaa sawirro xayawaana ama wax un gaadiid geed wax un baa lagu soo saari doonaa kadibna shaygaasi iyo magaciisa oo laakiin xarfihii isku dhex jiraan ayaa lagu tusayaa kadibna waxaa lagu leeyahay soo sheeg ama magacaasi meesha qaybta hoose ku qoran saxa saad arkaysa halkan waxaa ku sawiran ay kadibna xarfihii uu ka koobnaa magacayga ayaa halkan yaala laakiin way isdabamarsan yihiin marka waxaa laga rabaa inaad tuusisid sidaas oo kale bas oo kale ayaa halkan yaala xarfihiina way isdib marsan yihiin marka inaad tuusiso ayaa laga rabaa
tusaalahaan aniga tusinaya waka sidaas ayaa laga rabaa mas ayaa kuu muuqda laakiin xarfihii maska halkan bay ku qoran yihiin laakiin samaysiinaa saxda ayaa lagaga baxay isla markaana waxaad kusii baranaysaa qoridii iyo akhrintii saad arkayso waka marka barnaamijka runtii doonta waa sidaas oo kale barnaamijka runtii waa barnaamij aad iyo aad u muhiimsan laakiin waxaan jeclaan lahaa inuu free wada yahay si aan waxaan ku yiraahdaa qaybaha dhan wada furno laakiin waa ka xumahay free maahan barnaamijka waa lacag runtii waana u qalmaa lacag marka waxaan leeyahay ka faa'iidaysta dadka caruurahooda ay dibadda joogaan dadka caruurahooda guryaha ku xiran yihiin dadka caruurahooda aanay helin caruur ay la ciyaaraan haddii ay dibadda u dayn lahayn kaga baqayaan inay gawaarida ka jiraan haddii waxaan ku idhahdaa iyaga ay u sheekayn lahayn aanay waqti u hayn runtii waa fursad in barnaamijkan caruurta ay waqti ku qaataan anigoo aad iyo aad ugu talanaya inaanay faraha uga qaadin laakiin ay waqti kooban siiyaan maalin kasta saad arkaysaanba waa kabihii qoraalkii wuu isticmaalsan yahay isla markaadna waa aad saxaysaa si aad u baratid qoraalkii okay qaybtan waxaa kaloo jirta qayb kale oo iyadana waxaan ku idhaahdaa qayb si waxaan ku idhaahdaa maxaa la yidhahdaa markaad wax soo baratay kadib sida imtixaankii oo kale ah waxaa lagu weydiinay su-aalo aad ka jawaabaysaan waxaa lagu soo dhigi doonaa 3 qayb ama 3 khiyaar kadibna waxaad dhihi doontaa ama aad ka jawaabi doontaa su-aasha saxda ah ee taabir lagu leeyahay haddii aad su-aasha midda saxan taabato waa aad guulaysan doontaa oo waxaa lagu dhihi doonaa waad saxday laakiin haddii aad meel qaldan taabato waxaa lagu dhihi doonaa waad qaladay waatan qaybtan ilmaha iyo aabaha iyo ilmaha ay ka soo yihiin qaybtaas ayaan taabanayna sadarkiisanba waa kan amba ayaa lii weydiiyey waan ka jawaabay kursi ayaa lii weydiiyey waan ka jawaabay qomba ayaa lii weydiiyey waan ka jawaabay bas ayaa lii weydiiyey waan ka jawaabay waa sidaas ayuu kuu sheegaya ilmaha runtii aad iyo aad ba waxaan oo kale u xiiseynayaan isla markaana waxbay ku baranayaan marka dadka qaar caruurta game waxaan ku wax micnaan lahayn soo dejiye isaga mashquuliya barnaamijkan isaga mashquuliyaan isla markaana caruurtii waxa ugu bartaan barnaamijkan qolada barnaamijkan soo farsamaysan waxaan ka codsanaynaa inay intaan ka badan oo fariya kusoo daraan koley iyagana waxay geliyeen dhaqaalo iyo waqti iyo juhdi wixii taabka ay geliyeen inay waxaan kula dadka fari ku siiyaan suurtagal ma noqonaysa laakiin saad arkaysaan buwaka waxaa lay siiya dhibcahaasi si wanaagsan baad u habaysay baa lagu leeyahay marka asxaabay waad mahadsan tihiin like saara muuqaalka saaxiibayaal siina share garee lana wadaaga asxaabtiina barnaamijkana waxaan idin dhigi doonaa linkigiisa commentiga hoose qofkii doonaya qaybtaas ha ka soo degsano insha allah